bismillahi raxmaan raxiim waxaan aad iyo aad uga xumahay dhacdadii shalay ka dhacday degmada Heliwaa ee ciidamada AMISOM halkaas fal ugu geysteen shacab rayid ah oo 4 ka mid ah ay ku geeriyootay qofna ku dhaawacmay dhacdadaas xanuunka badan marka hore inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun inta dhimatay Allah u naxariisto kadib waxaan la hadlay taliyaha AMISOM ee sector 1 waxaana u sheegay in aan la aqbali karin dhacdooyinka noocan oo kale ah in shacabka waxyeelo loo geysto waxaana ka dalbaday in baaris dhab ahna lagu sameeyo dadkii falkaas ka dambeeyayna tallaabada ugu adag laga qaado annaga waa aaminsanahay ciidamada AMISOM inay halkan u joogaan inay Soomaaliya wax la qabtaan amniga nabadeynta soo celiyaan laakiin falalka noocan oo kale ah oo shacabka waxyeelo gaarsiinayna waxay wax u dhimaysaa sumcadda ciidamada AMISOM oo aan sharaf iyo karaamo u hayno hase yeeshee shacab haddii wax loo geysto annaga waxaan matalna waa shacabka maamulka gobolka banaadir waa maamulkii shacabka marka uma dul qaadanayno mana aqbalayno in shacab dhibaato loo geysto qoysaskiina waxaan leeyahay samir iyo imaan Allah naga siiyo waxaan idiin cadaynaynaa in arrintan aan ku maqannahay cidda allaale ciddii falkaas geystayna tallaabo ka qaadi doono taliyaha wuxuu kaloo ii ballan qaaday in ay ka soo saari doonaan war arrintan ku saabsan isla markaana ay qoysaskii ay saamaysayna ay la kulmi doonaan marka waxaan rajaynaynaa shacabku inay maaragtay isdejiyaan oo falkan isaga ah waxaa la rabaa inuu tusaale noo noqdo qofkeennii Soomaaliga ah waxyeelo la geeyana aan runtii sidii sharciga u sarayn lahaa qof walbana sharciga loo marsiin lahaa aan ka wada shaqeyno taasaa nidaamka iyo maamulkaba ay ku jirtaa waa mahadsantiin